السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علي qaaliga soo dhawaada caafimaadkiina see tihiin soo dhawaada biyo iyo shaah iyo waxaa ratiin waa alla waxaa jeceshiin soo qaata maanta sheeko dheera idin hayaa waxaan rabaa inaan ogaado kalsooni darrada gabdhaha Soomaalida haysato meeshay ka imaatay because maalin walba waxaan arkaynaa gabar oo social media ka dhex oynaysa and most of the time na gabdhaha badankood sababta ay u oynayaan ayaga dartooda waaye waxba yaa la dhihin maxaa la dhahaa faarax iyo hebelow iyo nin Soomaaliya no adiga qiimahaada garan waayay adiga qof aan ku qalmaynin raadsatay adiga wallahi I don't feel sorry for them ma dhahayo nin xun ugu jiraa laakiin adigana you have a choice marka qofkan aragtid inuu kugu soo adag yahay kabahaada qaada meesha waxaa ku dhigaya qof aan ku respect mana dhihi kartid qofka waa jeclahay because qof aan ku respect garaynaynin qof aan care kaa lahayn inaad joogtid inaad maqan tahay aan shaqadiisa ahayn maxaa jecelkiisa ana qofkii jeclaado baa jeclaada qofkaan jeclaanayna inuu nool yahay inuu dhintay waxa ma ka ogi yani kole aan maskaxdayda saas u shaqeysa arano dadka kale maskaxdooda u shaqeyso anyway maanta waxaan daawanayay barnaamij markaan ku dhahay gabdhaha dhibaatada lugahooda ayaga ku raadsadaan waa tan camal gabadhanayto barnaamijkan daawanaya waxay leedahay wiilay u timaaday waxay dhahday waxaan rabaa inaan tijaabiyo saaxiibkay ee iiwa maxaa adiga u tijaabinaysaa ninkan asaga inuu ku tijaabiyo soomahan inuu ku ogaado soomahan adiga inaad jeceshahay in kale inay adiga lagu daba cararo waaye inay adiga lagu raadsado waaye in my opinion inay gabadhan daba cararto ma aha aniga waxaan aaminsanahay gabadha iyo wiilka gabadhay ku qurux badan tahay in la daba ordo telefoon makaa qaban waaye next you should be inaad haysatid liis dheer ma garat adaa waiting list lagugu jiraa maxaa u daba ordi hadduu kaa qaban waayo mise uu kusoo xiriirin waayo Janice one day see maalinta dambe sababta ii soo wiceysana maxaa waaye dheh ka ogolaan maalin dambe inuu soo wici waayo wax oo maraamarsiinyo laakiin qof kaa sii jeedo marmarka qaar waxaa jirtaa feelings oo qofka ku abuuran ilaahay qof walba wuxuu u abuuray dareen oo ku tusinayo inuu qofkan qof aan ku qalmo u ahayn in adiga qofkan ayna iskeenaynin laakiin badanaa ma dhageystaan gabdhaha because sababta hadda gabadhan u dhahaysa wiilkan iiwa maxaa waaye because she knows inuu qofkanito uu keerka lahayn laakiin still waxay rabtaa inay ogaato inuu rabo inuu jecel yahay I know sababta ay u dhahaysa wiilkan iiwa inuu jecel yahay in kala fiirinaya way og tahay she knows inay maxaa la dhahaa red flags badan u tusiyey red flags maxaa la dhahaa adi dareenka idii sheegaya waaye qof walbo bili-aadin oo maskaxdiisa shaqeynayo markuu wax qaldan yahay waa codka yaro kugu dhex jiro oo kuu sheegaya you know waad dareemaysaa everybody has it mar alla marka qof aa aragtid inaad feelingkaas uu soo galay mise aada dareemahaas uu ku yimaaday something is not right ha aamusiinin dhageyso ma fahant qof mara wallahi bilaa it's very sad like ana hadda anoo li qabo alxamdulilah oo 4 ciyaal haysto hadda banaanka isfaham weyne ani ninkeyga dhulka isma dhigay waxaa iska soo qaadayaa inaan ahay naag maxaa la dhahaa berigii gabadheyda ama gabadhigan gabar ahaa camal waxaan aaminsanahay inaan dhul dhacaynin waxaan aaminsanahay inaan nin waynaynin maxaa ayagoo oo maxaa la dhahaa oo gabdhe oo yaryar u diiday inay sidaa u fikiri waayeen I don't understand wallahi ma fahmin I hope intii oo maxaa la dhahaa gabdhaha kalsoonida laga dhiso ilmaha yaryar kalsoonida hadda kuwan weeba tageene islaamo waaweynaa saan u dhaqmooyaane laakiin ilmaha yaryar oon dhalnay hadda ani gabdheyda maalin hore sida camal mar walba waa kala dagaalaa because ma rabi ani kalsooni darro inay ku dhacdo ilmahayga ma jecli because aniga kalsoonideyda ayadeyda ii soo dhisi jirtay war ani waxaa la i baray
inaan qof walbo adduunka saaran qof maxaa la dhahaa ka iga qiimo badan uu jirin. Waana aaminsanahay dadka bini'aadankana kuma xadgudbi, anigana xadgudub waa nacabahay. Qof aan bullshit ka qaato male. Ani waxaa ahayaa i taabanin maku taabanaay. Ma fahanteen? And I think dabeecaddan haysto dabeecad fiican inay tahay because qof bini'aadanna kuma xadgudbi, anna ma jeclayn in lagu xadgudbo. Waxaan jecelahay mar walba qofkan kabihi uu xiran yahay inaan la xirto. Waxaan jecelahay inuu qofkan boos ku taagan yahay inaan la istaago bal yar aan yar fiiriyo like qofkan waayo sidan ugu fikiraya, you know. Laakiin at the same time qof oo laba ila imaan karo ma jiro. I don't care who you are. Ma fahant? Waa ku ixtiraamaya ee ixtiraam. Berigii oo shaqaansi ku jirana qofkii ani karif ii keena nambaraha waa ka bedelin jiray dib dambana oo lama hadli jiray ma asalaam dhihi jiray. Ma adalaaye anaa tijaabinaa miya. Maxaa adduunka dhan nimanka inay kusoo dhamaadeen camalaaba u hadlowsiin bee maxaa qaldan. Haddaan kuu sheegaa nin jecel ma jiro naa ka daba qabqableyso meel fadhiisa dad jecel ku haya caloosha dhuqso dhuqlaynine bismillaahi. I don't know abaartaan meesha ka imaatay abaar walaa I don't know. Anyway hadda gabadheeda yar maxaa dhacday maalin hore iskuulka markay bilaabaysa actually kindergarten hadda second grade adi 2 years ago ay ahayd. Laba galaanay jeclaan jirta marka inaan timaha uga dhigo subaxdii. Labadii galaanaa u sameeyay marka iskuulka kasoo laabatay waxay igu dhahday hooyo labadan galaan ha ii galaamin aniga mar dambe. Marka gabadheedu waan aqaanaa aniga labada galaan bas ay jeclaan jirtay styleka ani timaha si loo hagaajiyo ciyaalka waan aqaanaa. Marka mar walba waxaan dhahaa labada galaan aan kaa bedelo nooc kale aan kugu sameeyo ma ay dhihi jirtay labada galaan aad ay u jeceshahay. Marka waxa inuu wax jiro waan ogaaday. Waxaan dhahay maxaa dhacay hooyo maxaa labada galaan u nacday waa kaa bedelaa dhib male. Laakiin waxay tiri saaxiibaday Josie waxay igu dhahday timahaas hooyada kugu soo hagaajiso laba galaan leh mar walba kugu soo galaantaa ma rabi dheh. Markaasaan ku dhahay adiga galaanka labada galaan ma nacday may dhahdaa ani waan jeclahay labada galaan aa ii galaantid. Maxaan dhahay marka timaha yaa iskale adiga mise waxa iskale Josie. Waxay tiri anaa iskale. Markaasaan ku dhahay Josie waxaa ku dhahdaa is okay hadaa timahayga sida hooyaday igu galaamay hadaada ka helin laakiin aniga ka hela anaa jecel is okay adi you don't have to like the way my mom igu braid gareysa my hair. Marka ani laba galaana waxaa ugu sameeyaa qurux badan hataa gabdhaha baska ciyaalka saaran waxay ku dhahaan I wish inaad sida u galaantid aan u aqaano inaan u galaamo ilmahayga u galaami lahaa ay dhahay jirin. Marka meeshaan waxaan barayaa gabadheeda inaan la xukumin waxay iyada jeceshahay ay sameysato. Marka please gabdhihiinana sidaas camal because markay yaryar yihiin cashirka u dhigtid laba wax baan gabadheeda weynta aan baray. Hadda waxay jirtaa 8 jirtaa 3rd grade ay aadaysaa marka iskuulka la furo insha Allah. Labada waxaan baray wuu ku dhegaan ku dhahay markay iskuulka bilowdeen ahayd. Wixii kaloon gabadheeda baran waxay ahayd gabdha ayaa abaadal gareyn jireen markay kindergarten ku jirtay. Waxaan ku dhahay waxay dhahday hooyo midoo carab oo Faadimo la dhahay iyo midoo kale iskugu tagi jireen. Marka gabadhii maalin ay imaatay maalmo maxay maalinta ugu horreysay imaatay iyadoo carro timaha ugu jiro. Waxaan dhahay carrada yaa timaha kaaga soo shubay. Waxay dhahday Faadimo waay kaaga shubtaan ku dhahay. Waxay dhahday I don't know ma kasaaye. Markaasaan ku dhahay ma dhahday stop ha igu shubin arra maya. Maclimadu u sheegtay maya bas ay maclimadu u sheegaan ku dhahay maclimada dee wax kaaga qaban weyso oo qofkaas marka uu kugu soo celiyo iska celi af hadii wax lagugu dhaho af waa qabtaa iska reeb wixii lagu dhaho wixiisa kala dheh gacan kula soo aadeen u dawamari iyagana laakiin adiga qofna ha gardareysan hooyo gardaro ma fiicno adiga qof bini'aadan weligaa ha gardareysan only qof haduu ku gardareysto iska celi. Sababta aan dhahayn waxaan rabaa inay istifaacdo inay kalsooni isku qabto fahantaan because maraba aniga gabadheeda the whole reason aan ugu sheegay waxaas dhan waxaa waaye maraba inay
qof kale in isku compare gareyso waan diidaa. Marka inay maalin ay waxay damacday inay ayadii gabar kale tusaale soo qaadato waxay dhahday hooyahay Ibraayo maxaa la dhahaa ma seexato eid ma seexato waxay seexataa 10 hooyadood dhaqso ma seexiso waxaan ku dhahaa aniga Ibraayo hooyadeed waaye adigana anaa hooyadaa ah Iblaayana guri kale ku nooshahay adina gurigaana ku nooshahay gurigeena ruulkiisa wakaasa 8 o'clock kala seexanaya iskuul haduu jiro Iblaayo haday soo jeediso ayada u taala aan wax gelin aan hooyadeed mihi laakiin adiga hooyadaa ahay mana fiicno inaad qof kale aas barbar dhigtid wakaasa sleep over maalin ay dhahday Iblaayo sleep over aadeen ana waxaan ku dhahay cunugan dhalay weligay ever maseexanaysid guri dad leh gurigii habartaa iyo aabahaa lay joogaysaa mar dambana su'aalahaas camal ay soo weydiinaa ku dhahay ani bas waa tagtay way ogtahay hada marka meel la aadayo iyo gurigaas aan soo seexanaa damba layguma dhaho ani sleep over maxaa waxaan ku dhahay sleep over taas waa wax walba ii dhahdana oo sheega waxaan ku dhahaa Iblaayo ruulkooda ayaga haystaan anagana ruulkeena haysanaa marka walaalayaal war badan idin geliye marka please ilmaha yaryar gabdhaha yaryar iyo wiilasha hataa way u baahan yihiin kalsooni siiya siba gabdhahan kabaha gacmaha ku wataan please kalsooni siiya ani waan yaabanahay walaahi marka hadaa waqtigan soo gaartay aad iyo aad aa mahadsantahay mar walba waxaa kaaga mahadcelinaa waqtigaada qaaliga ah hadaa cusub tahay channelkayga ku cusub tahay soo dhawow hadaa hore ila joogi jirtana aad iyo aad aa umahadsan tahay subscribe like and comment and share intaba ha iga iloobin channelkana hore u gala videoyaal badan ayaa ku jiro videogan videoga ka horeeya hataa waa routine waan soo saaraa hooyooyinka waxay qabtaan aan rabaa fadlan please dhiirigeli aan is dhiirigelino aad iyo aad aa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu